السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركلة سودة وهذا أدي هذا أمها سنتهين مانتا وإسنين وأنا سجالي لباتنك بيش اللي حاد جون سنة كلا بدو كون إيو اللحية لباتنك مانتا وهرجب سنة حوجا عدكي هدي وين يهي إهوقا تصنقدنا وإيه حرنتهي مقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقو محكمة السريح أي مانتا وحا أي قوامك جارتي دور كيس أو هرتيلي مدحوين ترام سدح ذن كيس به إسجا أي قصيين hal mid ayay maxkamadda sare ay ku raacday labana madaxweyne Trump maxkamadda sare waa ay ku diiday haddaba kiisaskaasi maxay kala yihiin waan idin la wadaagaya maalmihii u dambeeyay waxaan ognahay Iran iyo Mareykanka in heshiiskii isfahamka la jabiyay oo Iranna maraakiib ay ku weerartay diyaarada drone Mareykankuna uu duqeeyay sidoo kale Iranna saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay Kuwait iyo Bahrain ay duqeysay haddaba madaxweyne Trump ayaa maanta waxa uu soo qoray in maalinta beri ah wada hadallo Iran iyo Mareykanka ay isugu tagi doonaan magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar arrintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalmo ka hor waxaan idin sheegay maxkamadda sare sagaalkeeda garsoore in xilligii maxkamadda kalfadhiga maxkamadda uu xirmayay uu soo dhow yahay maxkamadda sare waxa ay shaqadeeda bilowdaa sanad kasta bisha tobanaad afarteeda waxaana kalfadhigoodu uu ku eg yahay dhammaadka bisha June ama toddobaadka ugu horeeya ee bisha toddobaad ee July haddaba kiisaska loo gudbiyo oo maxkamadaha hoose iyo dawladdu ay isku qabsadaan ayaa maxkamadda sare loo gudbiya marka maadaama kalfadhigii maxkamadda sare uu soo dhow yahay xilligii uu xirmayay ayaa go'aamada hor yaalla marka hadda go'aan ay ka gaarayaan maanta waxaa soo baxay ilaa iyo 3 go'aan oo kala duwan laba ka mid ah madaxweyne Trump uma fiicna hal mid ayaa maxkamadda sare ay madaxweyne Trump ay ku raacday haddaba bal aan eego kiisaskan sida ay kala yihiin kiiska koobaad wuxuu yahay haweeneydan madowga ah ee la yiraahdo Lisa Cook waxa ay ka tirsan tahay gudoomiyaasha bangiga dhexe ee Mareykanka sidaan ognahay gudoomiyaha bangiga dhexe haddii madaxweynuhu uusan u haysanin wax caddayn ah in uu qalad sameeyay xilka kama qaadi karo xubnaha kale ee ka tirsan bangiga dhaxana xilka kama qaadi karo madaxweyne Trump bishii Agosto 25keedii sanadkii hore ee 2025 ayaa haweeneydan madowga ah oo la yiraahdo Lisa Cook uu xilka ka qaaday maadaama xubnaha ay ka mid ahayd bangiga dhexe waxaana uu ku eedeeyay mortgage fraud wax la yiraahdo musuqmaasuq inay sameysay dhinaca guryaheeda ah arrintaasi oo wax cadeyna madaxweynuhu uusan soo bandhigin maxkamad ayay aaday waa igu guuleysatay madaxweyne Trump waxa la yiri madaxweynuhu xilka kama qaadi karo oo shaqadeedii ayay ku laabatay kiiskii marka madaxweyne Trump maxkamadda sare ayuu la aaday haddaba go'aankan marka maxkamadda sare maanta ka soo baxay waxa ay 5 garsoore ay isku raaceen in madaxweyne Trump uusan xilka ka qaadi karin haweeneydan ka tirsan guddiga bangiga dhexe ee Mareykanka xubnaha isku raacay oo yiri madaxweynuhu awood u malahan inuu xilka ka qaado waxa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare Jason Roberts Sonia Sotomayor Elena Kagan Brett Kavanaugh oo waliba madaxweyne Trump uu magacaabay iyo Ketanji Brown Jackson oo madaxweyne Biden uu magacaabay intii uusan xilka ka degin xubnaha diidan waxay kala yihiin Clarence Thomas oo waliba nin madow ah oo xubinta kaliya ee madowga ah ragga ah ku jira garsooreyaasha maxkamadda sare Samuel Alito ayaa ka mid ah Neil Gorsuch oo madaxweyne Trump uu magacaabay ayaa ka mid ah iyo waliba Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu isaguna magacaabay marka maadaama 5 xubnood ay yiraahdeen madaxweynuhu xilka kama qaadi karo sidaas ay sharci ku noqonaysaa oo madaxweyne Trump xilka kama qaadi karo waana markii ugu horeysay 112 sano taariikhda bangiga dhexe oo madaxweyne xil uu ka qaado madaxweyne Mareykanka xubin ka tirsan guddiga bangiga dhexe ee Mareykanka madaxweyne Trump marka qoraalkan ayuu soo qoray kadib markii maxkamadda sare go'aanka uu ka soo baxay madaxweyne Trump marka waxa uu yiri dacwadda la xiriirtay Lisa Cook ma aysan ku habboonayn ayuu yiri in ay xubin ka noqoto guddiga bangiga dhexe sidaas darteed ayaan kiiskan maxkamadda sare aan ugu dirnay haddana waxaan si degdeg ah ku qaadi doonaa ayuu yiri tillaabooyinka laga maarmaanka ah si aan u xaqiijino in qof qalad sameeyay uusan ka mid noqon xubnaha go'aanka muhiimka ah ee mustaqbalka Mareykanka wax ka gaaraya bangiga dhexe waxaan ognahay interest rateska ayuu ama kor u qaadaa lacagaha dulsaarka ama hoos u dhiga marka madaxweyne Trump iyo gudoomiyaha bangiga dhexe waxyaabaha inta badan hadda isku haystaan waxa ka mid ah in dulsaarka uu hoos u dhigo isaguna waxa uu leeyahay lama jooga xilliga xitaa waxa uu isku dayay inuu xilka ka qaado laakiin kama qaadi karo madaxweynuhu wuu magacaabi karaa
laakiin kama qaadi kara haddii aan wax qalada lagu haynin gudoomiyaha maxkamadda sare. marka madaxweyne Trump kiiskaasi waa looga guuleystay. kiiska keliya ee madaxweyne Trump uu ku guuleystay oo maxkamadda sare maanta go'aankeeda ka soo baxay waxaa ka mid ah haweeneyda la yiraahdo Rebecca Slaughter oo iyaduna ka mid ah guddiga federaalka ah ee ganacsiga ee Mareykanka oo Federal Trade Commission la yiraahdo ayaa xilka uu ka qaaday bishii March 25keedii sanadkii la soo dhaafay. marka kiiskan la yiraahdo Trump vs Slaughter ayaa sidoo kale waxa xubnaha ogolaaday waxa ay yihiin 6 xubnood oo yiri madaxweynuhu xilka waa uu ka qaadi karaa. waa gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch oo Trump magacaabay, Brett Kavanaugh oo Trump magacaabay, Amy Coney Barrett oo Trump magacaabay iyo Clarence Thomas oo taageera madaxweyne Trump isaguna ah. xubnaha diidayna waa xubnaha kale ee kala Sonia Sotomayor, Elena Kagan iyo waliba Ketanji Brown Jackson. iyaguna waxay yiraahdeen madaxweynuhu xilka waa uu ka qaadi karaa. marka madaxweyne Trump halkaasi kiis oo kaliya ayuu ku guuleystay kiisaskii maanta go'aanka ay maxkamadda sare ay ka gaartay. madaxweyne Trump marka bartiisa Truth Socialka ayaa markii go'aanka maxkamadda sare uu ka soo baxay oo kiiskii Slaughter uu ku guuleystay wuxuu yiri arrintan waxa ay na tusinaysaa kiiskan la yiraahdo Slaughter case in 90% in arrintan ay tahay mid aniga xaggayga la igu raacay. waxana uu sheegay in arrintan ay kordhinayso awoodda madaxweynaha xaqiiqdii. waa sida madaxweyne Trump uu soo qoray. kiiska kale oo xisbiga Republicanka iyo madaxweyne Trump looga guuleystay waxa uu yahay arrinta la yiraahdo mail-in ballot. marka doorashooyinka la gaaro in codka lagu dhiibto mail, ciidamada wadanka dibadiisa joogo, shaqaalaha Mareykanka ee wadanka dibadiisa joogo, dadka xanuunsan ayaa inta badan loo ogolyahay. marka madaxweyne Trump waxa uu ololeynayay sharci la yiraahdo The Safe America Act, kaasi oo 3 qodob madaxweynuhu bartiisa Truth Socialka uu ku soo qoray. marka koobaad waxay tahay dadka codeynaya waa in ay tusaan ID uu sawir ku dhagan yahay qofka uu cadeynaya in isaga uu yahay kow in laga helo. dhammaanba dadka codeynayna inay cadeeyaan inay muwaadiniin Mareykan yihiin, isla markaana sidoo kalena codadka mailka lagu dhiibto in kaliya lagu soo koobo dadka xanuunsan, dadka baahiyaha gaarka qaba, militariga iyo waliba dadka safarka ah oo wadanka xilligaasi ka maqan. marka madaxweyne Trump sidaasi ayuu doonayay in uu arrintaasi ay noqoto, laakiin maxkamadda sare waxa ay tiri codadka mail-in ballotka 5 maalin kadib haddii ay yimaadaan maalinta doorashada waa la tirin karaa haddii boostadu ay calaamadaysay maalintii doorashada. marka istaamba haddii ay boostadu ku dhufatay maalintii doorashada, arrintaasi waxay tiri maxkamadda sare waa la tirin karaa codadkaasi. waxaana sidoo kale jirta in kiiskan uu yahay kiis markii hore xisbiga Republicanku ay soo gudbiyeen, waxaana garsoorayaasha maxkamadda 5 ayaa ogolaatay, 4na waa ay diiday. waxaa kiiska la yiraahdaa Watson vs Republican National Committee. maxkamad ku taala Mississippi ayaa markii hore ogolaatay haddii ay shaabadisan yihiin waraaqaha mail-in ballotka maalinta doorashada in 5 maalin kadib haddii xitaa ay yimaadaan la tirin karo. arrintaasi xisbiga Republicanku waxa ay la aadeen maxkamadda racfaanka ayaana u ogolaatay Republicanka kiiskaasi inuu sii jiro. markii dambena maxkamadda sare ayaa loo gudbiyey bishii March ee sanadkan. maxkamadda sarena maanta waxay tiri codadka mail-in ballotka 5 maalin kadib haddii ay yimaadaan maalinta doorashada, haddii la calaamadeeyay oo boostadu ay calaamadeeda ku dhufatay maalintii doorashada 5 maalin kadib haddii ay yimaadaan xitaa waa la tirin karaa. arrintaasi oo madaxweyne Trump uu si aada uga carooday. ugu dambeyntii waxaan ognahay Mareykanka iyo Iiraan maalmahan waa la isduqeynayay, waxaana jirtay in marinka Hormuz Iiraan ay leedahay halka ay u calaamaysay maraakiibtu waa inay soo maraan, amarkeedana ay u hoggaansamaan. maraakiibta diidana waan gantaalo ayaan ku dhufanaynaa ama diyaarado daroona. waxay yiraahdeen marinka Hormuz meesha u dhow jasiiradda Larak Island waa in ay soo maraan maraakiibta. arrintaasi oo heshiiskii isfahamkana ku jirtay sida Iiraan ay sheeganayso. maamulka madaxweyne Trumpna waxay leeyihiin arrintaasi kuma jirin. Kuwait iyo Bahrain saldhigyada ay Mareykanku ku leeyihiin Iiraan waa tii duqaysay. Mareykankuna Iiraan jasiirado uu leeyahay ayay duqayeen iyo waliba goobo kala duwan. marka hadda madaxweyne Trump ayaa maanta waxa uu bartiisa uu Truth Socialka ku soo qoray Iiraan waxay naga codsatay kulankaasina waxa uu dhici doonaa berri magaalada Doha ee caasimadda Qatar ayuuna ka dhici doonaa. kulay Jared Kushner iyo Steve Witkoff ayaa uga qayb galaya dhinaca Mareykanka. Iiraan waxay leedahay inagu ma aanan codsanin, laakiin xitaa ma aysan xaqiijinin kulankaas inuu jiro iyo in kale. marka waan arki doonaa kulankaasina waxyaabaha ka soo baxa. marka waxaa la filayaa in maalinta berri ah sidoo kale arrintii madaxweyne Trump uu ololeynayay oo caruurta dadka sharci la'aanta ay wadankan ku dhalaan in dhalashada Mareykanka la siiyo in kale oo xuquuqda dhalashada Mareykanka inay go'aan ka gaarto toddobaadkan intuu socdo hadiiba aysan berri noqon. arrintaasna waan arki doonaa maxkamadda sare haddii madaxweyne Trump ay ku raacdo amaba haddii ay dastuurka waxyaabaha uu dhigayo ay u hoggaansato. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.